kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray aynu ku bilaabnay hogaamiyaha TPLF Debretsion ayaa warqad u diray hogaaminta 53 dal ururada caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda. Debretsion waxa uu sheegay in shacabka Tigreega ay sirbeegsi lagu hayo loona geystay xarig fara badan intii xaaladda degdega ah la galay, wuxuuna beesha caalamka ku dhaliilay inay tallaabo qaadin oo ay arrimahaasi daawanayeen, isagoo u soo jeediyey in tallaabo la qaado oo ay beesha caalamka dagaalka socdo joojiso. Debretsion ayaa dalalka Imaaraadka iyo Turkiga eedeymo u soo jeediyey, isagoo sheegay in Itoobiya dagaalka ku taageerayaan. Si gaar ahna wuxuu ka hadlay drones-ka oo uu sheegay in dhowaan si hor leh loo keenay dalka, isla markaana ay duqeymo ka geysteen Tigreega. Muddo badan ayaan aaminsanayn in wadahadal lagu xallin karo xiisaddan, beesha caalamkuna marar badan oo ay dalbadeen waxa uu sheegay inay wadahadal u diyaarsan yihiin, balse waxay arrintaasi ka socon laadahay dowladda dhexe oo dabka ku sii shidaya dagaalkan, ayuu yiri Debretsion oo warqad u diray beesha caalamka. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka soo gala dhinaca gobollada waqooyiga Somaliland. Guuleed Biixi Cabdi ayaa ku soo baxay kursiga Hob 255 ee doorashadiisa la qabtay, wuxuuna helay 58 cod sida uu shaaciyey guddigu. Sidoo kale Axmed Maxamuud Maxamed oo horey kursigaani uga fadhiyey ayaa helay 22 cod, halka musharaxa saddexaad ee tartamay Cabdulaahi Biixi Xuseen uu isna helay 21 cod. Kursiga Hob 262 ayaa sidoo kale waxaa dib looga doortay Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo heshay 93 cod kadib markii ay ka tanaasushay Caasha Aadan Yuusuf oo la tartami lahayd. Sidoo kale kursiga afraad ee la qabtay doorashadiisu waxaa ku guuleystay Cabdulaahi Cismaan Ducaale ka gadaal markii ay tanaasushay Muune Ibraahim Cali oo la tartami lahayd. Natiijada soo baxday doorashada maanta lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Jarnaal Kaahiye ayaa ahayd mid la filayay loona saadaalinayay xubnaha la doortay. Qabashada doorashadan ayaa ku soo aadayso xilli ay weli dood adag ka taagan tahay doorashada Golaha Shacabka ee haatan ka socota dalka. Si kastaba, shalay ayay ahayd markii shaqada laga eryay ilaa 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii lagu eedeeyey inay ku milmeen arrimaha siyaasadda ee ka jira gudaha dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamuud Laftagareen ayaa maanta maamuusaya sanad guurada saddexaad ee kasoo wareegtay markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo. Munaasabadda sanad guuradan ayaa waxaa ka qayb galaya mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo madax kale. Waxaa munaasabadda sanad guurida maamulka Laftagareen ee ka dhacaysa magaalada Baydhabo lagu wadaa in madaxda golaha wada-tashiga qaran ay fursad u helaan inay si foolka fool ah u wada hadlaan kadib dhowr bilood oo wadahadalladooda ay ahaayeen mid dhinaca aaladda fogaan aragga ee Zoom-ka ka dhacayay. Intaasi waxay nooga eg wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray.